shirkadaha ugu waaweyn ee soo saara aaladda robootka ee waqooyiga iyo bariga qaaradda Yurub waxay qofkii ay siinayaan lacag $200,000 Maraykanka waa haddii ay luminayaan xuquuqda wejigooda iyo codkooda si baa la yidhi horumar loogu sameeyo adeegga robootka. shirkadda la yidhaahdo Promopotis ayaa mashruucani waxay markaasi ay u soo bandhigtay dadweynaha caalamka 20,000 oo ka mid ah dadka adduunka ayaa codsigani markaasi durba aqbalay. haddaba waxaa qorshahani u noqonayaa in markaasi wejiga qofka iyo codkiisa loo isticmaalo robot, yacni waxa weeyaan wejigaaga weji u eg oo roboda ayaa la soo saaraya iyo sidoo kale robot codkaaga oo kale soo gudbinaya. taasina waxay markaasi ay noqonaysaa mid aad ku helayso lacag $200,000 Maraykanka ahi. shirkaddan ayaa waxa ay door weyn ay ka qaadataa ama ay kaalinta koowaad kaga jirtaa shirkadaha soo saara robotka, waxaana markaasi barnaamijkan iminka uu noqday mid aad u xiiso badan, dunidana aad ayaa looga hadal hayaa. haddaba adiga ma oggolaan lahayd inaad lumiso xuquuqda wejigaaga iyo codkaaga, isla markaana miyaad ku beddelan lahayd lacagtaasi $200,000 Maraykanka ahi?